waqti iskaga dhuminin raadinta sida fudud ee caloosha loo jaro calooshaada si fudud ku jarmayso wax fudud ma jiraan fiiri calooshaada waxa buuxinaysay maalin walba inta nooleed waxaad rabtaan ka buuxinaysay marka calool maalin walba la buuxinayo wixii rabana laga buuxinayo si fudud ma ku jarmayso asxaabta soo dhawaada saaxiibkii Marori Masal waaye minikini waaye adiga walaashay walaalkay hadda channelkan ku cusub aniga magacaygu waa Cabdinaasir waxaan soo biyaa video ku saabsan jirriska iyo raashinka videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay skinny fat qof caate ah haddana meelaha qaar dufan badan ku leh videoga wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waan gymka joogo qaybta dambana waxaan sharaxaa waxyaabaha keeno qofka skinny fat inuu ahaado iyo sida loo xaliyo problemka skinny fatka fiirso videoga ila dhamaadkiisa inaad ka faa'iido ayaa laga yaabaa asxaabta sawjadaan xaafadan joogaa gymku waa ka imaaday balanta waxay ahayd inaan sharaxo waa maxay skinny fat waa qof caate ah murqo qabin luga yaryar gacno yaryar calooshana ka weyn dadka skinny fat ee badanaa waxay ka weyn yihiin ama dufan badan ku leeyihiin caloosha iyo agagaarkeeda dadka qaarkiis naasahay ku leeyihiin dadka qaarkiis dabada ama lugaha ayay dufan badan ku leeyihiin waxay ku xiran tahay geneticskaaga iyo meesha aad ku qabtid fat cells badan qofka bini'aadanka ah inuu ahaado skinny fat waxaa keena saddex arrimood arrinta koobaad oo ah qofka inuu ahaa qof buuran laakiin uu isku dayay inuu iscaateeyo markuu iscaateynayo wuxuu isku caateeyay si qaldan oo si radical ayuu u ahaa caloric deficit markuu iscaateynayna wax resistant training ah muusan soobin markaas kadib miisaanka uu ka dhacaa laakiin markuu miisaanka ka dhaco murqo badanna way ka dhacayaan qofkaas markuu miisaanka ka dhaco wuxuu ekaana skinny fat tan labaad oo keeni karto qofka inuu ahaado skinny fat waxay tahay qofka inuu ahaan jira caato isla markaana uu isku dayay inuu miisaan isa saaro sidoo miisaanka isku saaray ayaa ahayd si qaldan raashinku uu cunay ma ahayn raashin quality leh wuxuu si radical u ahaa caloric surplus markuu gymka joogana si fiican muu training gareyn jirin hadda si radical caloric surplus u tahay miisaan wuu kusoo koraa laakiin miisaanka kusoo koro ma ahaanayo miisaan aad ku qanacsan tahay tan saddexaad oo keeni karto qofka skinny fat inuu ahaado waxay tahay tan waa meesha maaragtay dadkeena Soomaalida ay u badan yihiin qofka asigoo natural caate ah dhaqdhaqaaqiisa yar yahay wax jimicsi aan soobin wuxuu cunaa raashin aad u badan oo aan quality lahayn adigoo jimicsi soobin dhaqdhaqaaqa yar yahay haddii aad cunto maaragtay raashin aad u badan oo quality-giisana uu xun yahay adigoo luga yaryar gacno yaryar caloosha iyo dabada ka weynaanay maadaama hadda aan kasoo hadalnay skinny fat iyo waxa keeno skinny fat su-aasha hadda isweydiiska mudan waxay tahay waa maxay xalka haddaad tahay skinny fat macnaheedu waxay tahay waxaad cuntaa raashin badan oo aan quality lahayn raashinkaas badan oo aan quality-ga lahayn kilocalorie aad ka heshid waa waxa ka dhigay skinny fat marka waxaa la rabaa raashinka cunaysid quality-giisa inaad bedeshid oo u bedeshid raashin quality leh raashinka cunaysid waxaa la rabaa inaad ka heshid carbohydrate kugu filan oo quality leh protein kugu filan oo quality leh iyo fat kugu filan oo quality leh saddexdaba muhiim waaye inay quality leeyihiin inayna kugu filan yihiin haddii aadan aqoonin raashinka laga helo carbohydrate quality-ga leh
video aan kasoo biyay linkiga hoosaan soo gelinaa. Sidoo kale haddii aadan aqoonin proteinka quality-ga la raashinka laga helo asna video aan kasoo biyay linkiga hoosaan soo gelinaa. Videoyadaas fiirso inaad wax ka faa'iido ayaa laga yaabaa. markaad raashinka saxdo waxaa kaloo la rabaa inaad saxdo trainingka. fiiri gymka markaad tegaysid waxaa la rabaa ego-ga banaanka inaad iska soo dhigtid oo aad ka bilaawdid miisaan yar si aad u barato technique sax ah. markaad barato technique sax ah, markaad barato muscle mind connection, markaas kadib miisaanka inaad ku darto si tartiib la rabaa adoo si safe oo sax u suubinayo. fiiri marka muruq training gareynaysid muruqaas aad training gareynaysid waxaa la rabaa shaqada inta badan asiga inuu qabto. ogow haddaad waxaa rabta suubisid saa rabtana biraha u qaadid markaas waqtiga kaa qasaarayo muruqna ma imaanayo. haddii aad tahay qof buuran isla markaana rabo inuu miisaan iska rido sida saxda ah miisaanka la iskaga rido waxay tahay waa inaad tahay caloric deficit in kooban. tusaale ahaan haddaad maalintii u baahan tahay 3000 oo kilocalorie waa inaad cuntaa 2500 oo kilocalorie. markaad 2500 oo kilocalorie maalintii cuntid waxaad caloric deficit tahay 500 ama waxaad minus calorie tahay 500 oo kilocalorie. markaas miisaanka si tartiib ah kaaga dhaca, miisaanka ka dhacana ma kugu soo laabanayo. waxaa kaloo aad muhiim u ah markaad ku guda jirtid processka miisaan iska ridista inaad maalintii heshid protein kugu filan iyo inaad suubisid ugu yaraan weekii 3 ama 2 jeer training oo korka dhan murqaha jirka dhan wala training gareynaysa. sababtoo ah proteinka iyo trainingka waxay muhiim u yihiin inaysan murqa kaa dhicin. haddii aadan protein kugu filan cunin markaad miisaanka iska ridaysid aadan suubin resistant training oo suubisid cardio bes markaas markuu miisaanka kaa dhaco murqa badanna way kaa dhacayaan mana ku qanacsanaanaysid hadhow saa u ekaanaysto skinny fat u ekaanaysaa. badanaa khaladka weyn ee dadka suubiyaan markay iscaateynayaan waxa uu yahay waxay rabaan si dhaqso ah inay u caatoobaan. markaas waxay suubinayaan waxay si radical u noqonayaan caloric deficit. tusaale ahaan haddii u baahan yihiin 3000 oo kilocalorie waxay cunayaan 1000 ama 1500 oo kilocalorie. markaas mataqaanaa kala bar in ka badan kilocalorie u baahan yihiin ayay minus yihiin. markaas si radical minus calorie aad u tahay miisaanka si dhaqso kaaga dhaca. laakiin miisaanka dhaqsaha kaaga dhaco si dhaqso asna kugu soo laabanaa. sababtoo ah minus calorie intaas leeg jirkaaga ma xamili karo. marka khasab waaye inaad si sax ah u suubisid haddaad rabtid inaad si sax ah isku caateysid sabar inaad yeelatid. haddaad si radical u suubisid jirkaaga la rafaad gelinay miisaanka ka dhacana wuu kugu soo laabanaa. marka hadda waxaa soo haray Faarax iyo Xaliimo. haddaad tahay qof caate ah dhaqdhaqaaqin wax jimicsi aan suubin haddaad cuntid raashin aad u badan oo quality-giisu xun yahay caloosha dabada ka weynaanaysaa. markaad caloosha ka weynaatidna waxaa kugu dhacaysa sokor, dhiig kar iyo cholesterol. fiiri caafimaadkaaga wuxuu ku xiran yahay inaad cuntid raashin caafimaad leh dhaqdhaqaaqna aad suubisid. khasab ma ahan xataa gymkina aadid. haddaad cuntid raashin caafimaad leh maalintiina banaanka saacad ama 2 saac kusoo lugaysid intaas way kugu filan tahay. marka adiga walaashay ama walaalkay waqti iskaga dhuminin raadinta sida fudud ee caloosha loo jaro. calooshaada si fudud ku jarmayso wax fudud ma jiraan. fiiri calooshaada waxaa buuxinaysay maalin walba intaad nooleed waxaad rabtaan ka buuxinaysay. marka calool maalin walba la buuxinayo wixii rabana laga buuxinayo si fudud ma ku jarmayso. waqti iska dhuminin riyadan iska dhaaf kaftankan iska dhaaf shaqo u soo diyaar garow. marka hadda su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay haddaad tahay skinny fat ma u baahan tahay inaad miisaan iska ridid. haddii aad tahay skinny fat percentage-kaagan uu ku yaryahay 20% uma baahnid inaad miisaan iska ridid. waxaad u baahan tahay quality-ga raashinkaad cuntid inaad bedeshid oo cuntid raashin quality leh oo aad ka helaysid kilocalorie kugu filan iyo inaad iska saxdo trainingka oo si fiican u training garaysid. muddo kadib meelahaas faatka aad ku leedahay way kaa baaba'ayaan murqana way ku dhismayaan. asxaabta videoga intaan kusoo gabagabeynaa daawashada videogan aad daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin. adiga walaashay walaalkay haddaad weli channelkan subscribe like asxaabta idinkana videogan like saara. haddii aad rabtiin wax video inaan kasoo suubiyana commentiga hoos igu soo qora. aad iyo aad mahadsantihiin daawashada videogan aad daawateen. waxaan noo balana videogan ku xigo balanteenana waa muruq.